weynta waa konton afar wadan soo konton shan wadan konton xaqana ku qoran 90 dib ah waxa yeah 54 meelaas 54 countries Sudan ugu dambeysay South Sudan ugu dambeysay marka waxa imika weydiis lahaa Ruushka dhankiisa hadii imika Ruushka waxa ay dhacdo kadibna la yiraahdo social media malaha internetka dhanaa goosana dadka dhalinyarada Soomaalida shaqada internetka taa maxay qaban doonaan maxaa waa waxa kale taan rabina aan ka wada hadalnaba aan Soomaalidana aan rabay u sheego waa ognahay Ruushka waa nuclear power country waana loogu horeeyay asaga Mareykanka ugu horeeyay asaga kaliis nuclear power maaha Ruushkana waxa waay NATO kama mid ahan gooniyo ka yahay mana jeclo in loo soo dhawaado Ukraine buuq wuxuu wada waxa waay NATO iyo soo dhawaan back of iga fogaado maxana cause deeshiina waa ogahay waxay tahay waa iga fogaado and then marka Ruushka waxa laga dhigay the bad guy laga dhigay kulleeto siyaasadda sida u socota anaka politician malin baan garanayo ayaga garanayo laakiin waxa aaminsanahay Ruushka maadaama uu yahay powerhouse weyn oo hadii la dhaho dhaqaale hadii la dhaho awood military iyo nuclear uu leeyahay hadii nuclear uu tuuro maalin haduu tuuro xataa maahan markuu tuuro then waxa dhacayso satellite iyo internet dhan shutdown internet shutdown haduu dhaco adduunka oo dhan internet shutdown haduu dhaco dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka hadda maanta social media ka shaqeysta sida anaga kaleeto what is next maxaa ku xog maxaan sameyn doonaa because waxaan u laabananaa waagi horeeto old age loo laabanaya internetka hadii la xiro macnaheedu waxa satellite ka soo dhacay everything is over telephone ma wici kartid familkaaga laptop isticmaalaysa ma jiro guriga nalka aad daaraysa ma lahan waxay noqonaysaa shumac iyo mara yariis inta meel qori ku xirtid aad daaratid noqonaysaa guriga la gashid okay marka xaalad adag uu adduunku sugan yahay laakiin dadka qaar waxay u maleeyaan adduunka inuu caadi u socdo no adduunka Ilaahay meel uu ugu talagal u socdaa aan runaantina hadii waxaas dhacaan saameyn weyn dadka dhan ku wada yeelanaysa qof walba Soomaaliyeed dad baa meel u joogo oo ehela hadii san ehel ahaan xataa bina aadan anagoo kale taa ku nool Europe iyo Mareykan saameyn weyn ku yeelanaysa haduu nuclear dhaco aan runta markaan ka hadalno nuclear haduu dhaco that means meesha aad joogto adduunka ka dareemaysa daa sheek gariirkaas waxa ka dareemaysa meesha aad joogto tuulo ka fog meel walba ama aato Nairobi ama aato Soomaaliya aadweyn and then waxa jeclaan lahaa dadka inay isbaraan nolosha miyiga oo kale inay isbaraan in banaanka lagu noolaado nolosha sax wata banaanka imika degtila ku noqon waqti aniga telefonkayga aan isticmaalo doona haduu bilig soo yiraahdo xagga eega waa eega aan fahantay sababta waa ula bartay waa degtila ku noqday been ma hadda ku dhiiro qof kasto Soomaaliya waxa ugu horeysa marka subaxdii soo kacday asmiis maxay tahay telefonka waxa ugu horeysa markii aad soo kacday asmiinaysa waa phone-kaaga kawrada waxa aad u jiro software frequency magic wax la dhahaa jiro frequency magic lagu xiraa jirto adigii telefonkaaga xiriir fiican leeyahay waa aragtay telefonkaaga maalinta ugu horeysa ka dhumo labada bari ku xogta adduunka labada bari wuxuu waa telefonkaaga hadii ay weysid adiga dhan waxa dareemaysaa inaad xabsi ku jirtid sababtoo waa isbartay marka frequency-gaas magic sixir aw taqaan soma magic ku dhex jiro frequency qof haduu soo kaco telefonkaas ka ilaaliya taaban hadaa dhahay asoo taabta arkay hal ilo xiranta fiirina maxaa marka tiraadana wuxuu ku leeyahay saacada ka fiirina saacadu ma caadi u fiiriyo sawirka degtila ku noqon marka taas dal waayo waxa Soomaalidu sameey doonaa garameena hadii waayaan inaa hadda bilaabno ka sameeyno qasbaga soo toostina tiraadid biyay keen ana soo daratay noqonaysa adiga aad tahaanta hantina tagtay noqonaysa soo darato soo markaan aniga dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku go'aabin lahaa adduunka meel xun oo maraya wake up inay kacaan is a wake up call inay kacaan dadka isbaraan magaalada banaankeeda sidii ugu noolaan lahaayeen dad qaar waxay dhahayaan adii diris la bilaabeeno maxaa ka ogtaa adina aadna banaanka magaalada banaankeeda isbarayna ku noolaataan magaalada ka dheero sababtoo magaalooyinka waa buuq ugu daran meesha ka dhacay dad markii hore mii ka timiday oo garanaysa nolol noolaadana ma baahnida taqaanid biyaha sida loo ilaalsado waxa ugu daran haduu dagaal dhacaan waxa ugu dhibka badan waxay noqonaysaa waa biyo nuclear war haduu dhaco waa biyo mid kale tira radiation ka qabsan doona hawada waxa dhici karta 70 bari habeen lagu jiro qorax la arki waa qalgal soo marka waxyaalahaas oo kale iska jiro Soomaalidan waxaan jeclaan lahaa inay ka hadlaan arimaha noocaan oo kale taa anything can happen waxa imaanayo waves hirar waaweyn oo Africa soo garaacayo
waa haddii nuclear meel kale lagu dhufto Europe kamid ah dadka Europe joogaan waxa dhici karta inay zaad u cabsoonayaan soo ha cabsoonina wuxuu Ilaahay nii qoro ahelasan faithkiina la kulmaysan nothing waxaan lagu qorin ma cunays qof kasta wixii loo qoro afka gashanaya marka laakiin xaaladda lagu jiro waa xaalad adag waxaan jeclaan lahaa marka Soomaaliya especially dhalinyarada ay isbaraan nolosha miyiga iyo awoogood iyo ayeedood ku noolaayeen bal inay wax yar ka bartaan inay isku dayaan xataa weedaanta iyo ceelka inay soo jiidi karaan inay wax sameyn karaan in beer yariis uu yeelan karo laba xabanaani iyo moos iyo timir yar beeran karo timirtana aad u muhiimsan tahay taas aan ka soo dhaxgalay waxa jirtay maraha waxa joogay jijigan joogay dad markaa xaafadeeda anaga waxa jirta beer lana waxa la wixii yaro beer ma fahanteen oo guriga dhexdiisa saas waa la sameeyay hooyadiina iska xayawaan jecesho waxa jirta waxa ay taqaanin ri ari habad ari ay sababtay so dhalinyarada ciyaalkayga malaha kuwa aniga yari kuwaas markay arkaan waxa ay dhahdeen waxa waa laga tagay waxa lagu falaarin laga daa malaha ma rabniri ama beerta naga daa sababta beertu waxay keenaysaa inay xayawaan kala macdi maadaan meesha cunaan marka xayawaan kala noo keenaysaa inaga daa marka hooyadii ku jawaabaysay inagu cuntaa wana fahantii like marka cuntada cunno laga yaabaa inaad half dhan reebtid half ka aad reebtid xageed geeni so waana qasab waana daadto Soomaa marka maadaama la daadin lahaa mar walba in loo dhigo xayawaankan kale guriga ku joogo isagana fiid gareysid adigna isfiid gareysid fiid gareeya dadka caano adigina waa ka helay laakiin magaalka markii la joogo dustbin ka sugay cuntadaas yes waa daadine waana dadka markay saa u fikiraan waxa weeyaan dadkii hore meelaha fahansan noloshu waxay tahay laakiin dadka dhalinyarada imika way la yaabaan xayawaankan guriga u dhex joogaan waxa laga tagay hadii aad kambeer wax lagu xil waxa kana u keenaa maxay u keenaa bal sameyn kara dhalinyarada waxaan ku gowaabin lahaa qof kasta oo qarash isticmaala oo awoodiisa ay tahay inuu dhul banana intuu dago dhulkiisa greenhouse ku sameysto ku sameysto greenhouse wax ku abuurto yaanyo ku abuurto basal ku abuurto baradho ku abuurto geedo xitaa ku abuurto waxalbu u baahan shukro duuliyaad ku jira geedo abuurana laakiin qeyb yariis inaan ku abuurto qasab sharci ah kiyaan midada kale tan gabdhaheena inaan barno hatta sida loo wado faraska wiilasheena inaan barno sida loo dhaqaajiyo faraska gabdhuhu waxa koranaya bada faras iyo xafilkooda bilow madaliis noqdo dhali waaya sababta farasku ma jiraan u badboodaya boqolaal qof laakiin soo sameyn jiro faras dadkii hore oo dhan way soo wadi jireen ya gabadhaha waxa la baraa dabaasha waa la baraa and sida wax loo wado waa la baraa mashiinta sida loo isticmaalo everything sababta berito la gabadhaada inay ku badbaadaa dhici karto oo tiraadid waan garanayaa halkaas ay joogtay inay kaga imaan karto sababta waxaan baray waxaas iyo waxa masay ku survive garin lahayd aan baray aad weyn midda kale tan waa ogtahay gabdhaha badanaa aabayaashooda u dhow yihiin gabdhaha iyo aabayaashooda aad iskugu dhow yihiin aniga hadda aabahay Ilaahay u naxariisto wuxuu aad u jeclaa gabadha curadeena anaga noogu weyn Sucaado halkan ka salaamaya ayadu zaid u jeclaa gabdhahana inaan ilaalino way fiican tahay sababtoo gabadha zaid ku ogaanaysaa hadda ragnahay ilmahana inaan wada siino way fiican tahay rag iyo dumar laakiin gabdhahana waxa fiican more attention inaan siino sababtoo gabdhaha hadda more attention aan siino waxa dhacayso markay yar tahay hadii aad tiraado gabadheeda aad u qurux badan tahay hooyada xataa ka shidan ku soo koriso dan banaanka markay marayso laga dhaadhicin ma waa fool xun tahay la geliyo banaanka markay tagto nin ku day kara malaha laakiin gabadhaada hadii ka cararayso is another thing then ninkii banaanka ku aragtana way aadaysaa oo hadal macaan ay ku aragto because hadalkaas macaan aday ka weys gabdhahena markii aan jeclaano especially aabayaasha inay jeclaadaan aysan ka cabsoon way fiican tahay gabadha soo ag fadhiisan kartaa abeed good marinayna si qurux badan u hadalnay waxaan marinayna pointiyo badan taabanay waxyaabo badan ka hadalnay kan videogan ama episode ku xigan waxyaabo kale noqon doona insha Allah ilaahaydo waxyaabaha qaran ka hadalay yarta taabanin laga yaabo inaan mar kale ka hadalno iyagu faahfaahsan ama sababta waxyaabaha qaar dad kale inaan ku soo kordhino waa jeclaan ilaahaydo marka aan waxa oran lahaa aad buu mahadsantiin adiguna duunibiyaada mahadsan tahay thank you so much mahadsantaa sida sharafta badan ay iga aqbashay nala kulanto maalin walba show oo noo imaato dirislana waa kala waxaan leeyahay hambalyo mar labaad 1 million halkan waxaan ka salaamayaa Fam TV my family manajala thank you so much mahadsantiin Soomaaliya peace and love